السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو الله بشو وناكسن aad baan idin salaamayna asxaabta qaaliga maanta runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo hor muuqano channelkeena Axmed Daawud Official. maanta waxa ila jooga runtii walaaligu qaaliya saaxiibigu qaaliya oo halkan agteeda fadhiya abshir gaarane soo dhawaad abshir waa fannaankeeni qaaliga haweeyi waa sidoo kale youtuber sidoo kale waa fannaan Soomaaliyeed weeyi sidoo kale barnaamijyo badan buu leeyahay waad ka dabageyn doonaa linkigiisana hoostan idin soo dhigi doonaa insha Allah saxaabay maadaama aanu aad u jecelahay inaan muddo dheer ka maqnaanin oo aan mar walba idin update garayno oo barnaamijyo qurux badan aan idin soo tabino maanta barnaamij cusub baan wadnaa oo aanu furi doon maanta aanu ku furi doonaa halkan marka hore waxaan soo dhaweynay walaalkeen abshiro soo dhawow maxaa leedahay bulshada ku xidhan Axmed Daawud channel وما سنتهي مرحلة صاحبكي دمان وحن لي أصحابته كحيرن أحمد داود channel أد بندين سولويني أدنا وما سنتهين ده هدي أنو عزبتهين مرحلة أحمد داود channel هلا دافعنا سبسكرايب كريسو لايك كريسو كومنتي كانوا وحي طريقة سؤال هذا سو قد بيسو وأنا دوهي إن بدن abshiro hadii aan kula kaftamo maadaama de fanaan Soomaaliyeed tahay heeso badan aad kuntii adigu aad iska leedahay ay jiraan kuwa badan oo aad cod ka saartaan ay jiraan oo kuwii hore xafad qaaciyo badan ugu tiriyo kooban حدا بلان لهيد hees qurux badan oo ku haboon bulshadayna daawanaysa rag iyo dumarba gaar ahaan qabla lagu raali gelinay soo maaha hees ma idin soo qaban doonaa maadaama la gaaday waxaan leeyahay dadka aad waxay u jecel yihiin heesii hore صح marka waxaan soo qabanayaa hees uu qaaday fanaankii weyn Cabdalla Yuusuf Hanuuniye ما شاء الله shimbir shimbir yahow how dabaylaha daruraha dhexmaraya daynkii kuma orodko ugu dawgalay anna inan dilaanahay daqaraadii jacaylkaba dahka ma saarno dushayda waad ka aragtaa abidka ha iga dagin aku dagaali maaye waxbaan ku dirsanaya warqadan daboolane adusha sawirku kaga yaal adawadii qalbiga degdegiga gaarsi وأنا ضم دقضو dadkii way culubeende ducaa qur'aan bay wadaadadii ku daleende adoo kugu danseego dumar kalena inankii qalbigiisu diidiyo caashaqina mudayne ما شاء الله ما شاء الله hees iyo bar weeyi ما شاء الله cod iyo bar baa meesha ka dhacay aad buu mahadsan yahay heesta quruxda badan la inoogu tuuray walaalkeen abshir gaarane barnaamijkii aynu maanta halkan isugu nimid ayaynu furan doonaa insha Allah barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa barnaamij insha Allah idin qancin doona maanta waxaynu caleema saaraynaa ugaas abshir gaarane oo aynu markaa ku caleema saarayno inaynu ka dhigno madaxweyne dawladeed ama madaxweyne dal maadaama markaa aynu madaxweyne ka dhigayno isaga ayaynu u baahanahay inuu doorto magaaladii markaa magaaladiisii uu maamuli lahaa ama wadankii uu maamuli lahaa markaa caasimadiisii madaxdii hogaamin lahayd magaalo walba inuu ka soo qaato marka bal meesha ay qurux badan iyo xagga ay u wanaagsan tahay marka abshirow bal maanta waxaanu ka dhigaynaa madaxweyne wadan baad hogaaminaysaa wadankaad hogaaminaysaa waxaanu rabnaa inaad doorato bal haykalkii sida ay u ekaan lahayd magaaladaas iyo nidaamkii aad ku maamuli lahayd iyo waliba magaalooyinkeena Soomaaliyeed qurquruxda badan leh mid walba maxaad kaga soo darsan lahaydoo aad leedahay magaaladaas waxaasay ku wanaagsan tahay magaaladan aan abuurayeen asaasayo waxaan jecelahay inaan waxa ka soo qaato si ay markaa u noqoto magaalada aan doonayo nooca aan doonayo ay u noqoto waa arrin dhagoweeye ana horta ma gala no ma bilaabo Soomaa de magaalooyinkeena mid walbana waxaan ka soo qaadan doonaa meeshan qaabkan ugu bogo way horta ana waxaan samaysan lahaa ma isticmaali karaa luqadda qalaad waa isticmaal waxaan horta samaysan lahaa amaba aan waxaan ku dhahdaa yeelan madaxweyne ka noqonaya mataqaanaa wadan aan ugu magac daray ama leeyahay democracy country yes way wadan dimuqraadiyada way wax any shay waxa way dimuqraadi way marka wadanka waxaan aad iyo aad maxaan ku raahdaa
uga dhisi lahaa dhinac walba oo bulshada ay maxaan ku rahdaa ku qurux badnaan karto waay kow first one dhanka waxbarashada waxaan ka soo qaadan lahaa gobolada xaggan jiro sida gedo iyo maxaan ku rahdaa bay iyo bakool oo kale oo dadkooda waxbarashada diiniyan iyo maadiyan bay aad ugu adeegayeen maasha Allah waxaan ka soo qaadan lahaa waay dhanka ammaanka waxaan ka soo qaadan lahaa gobolada waqooyi baan ka soo qaadan lahaa iyo sida shacabka looga warqabo dadka looga warqabo wixii wadanka ku soo biiro iyo wixii maxaan ku rahdaa marka wixii nabadgeliya iyo amniga waxaan ka soo qaadan gobolada waqooyi marka isugu jira Hargeysa iyo Berbera ilaa Burco ilaa Boorama ilaa Awdal maasha Allah halkaas waan la mari lahaa waay dhanka bilicda waxaan la aadi lahaa Djibouti maasha Allah xeebta Soomaaliya waan la tagi lahaa xeebta Soomaaliyeed maxay ahaastay waan la tagi lahaa waay bilicda way iyo quruxda waay sida ay u habaysan tahay ay takadeeda u dhisan tahay dhanka quruxdeena marka Djibouti baad kaga soo darsay waay dhanka xayeysiinta iyo maxaan ku rahdaa isfaaninta iyo horumarkana haye waxaan soo qaadan lahaa Puntland Puntland soo qaadan lahaa marka waxaad ku dooratay codkarnimada iyo faanka iyo maxaan ku irahdaa laandheernimada magaala kama maarmaysan leedahay lagama maarmi karo waay dhanka dagaalka iyo maxaan ku irahdaa difaacana waxaan soo qaadan lahaa iyo ammaanka sugidiisana waxaan soo qaadan lahaa galmudug soo qaadan lahaa maasha Allah oo maxaan ku ka dhigan lahaa derbi ka dhigan lahaa maasha Allah sax wadankiiba waxaan ku irahdaa waxba kama maqna sayla tahay waay marka centralkaagu waalkii centralku meeshii dhexeed marka wadanka ka maamuli lahaa aad ka maamul lahayd soo maaha halkeed ka dhigi lahayd iyadana intaas oo dhan markaan soo koob centralkan waxaan ka dhigi lahaa Muqdisho waay oo aan wadanka wax ku mid ahaa waay dawladda hadii intaas isku hesho wax ka maqan mal waay tusaale ahaan maadaama dawladdaadii aad bixisay rag iyo dumarkana aan soo kala qaatay ma iigu dartid waay wad gabdhaha waxaan ka soo qaadan lahaa baydhabo ka soo urursan lahaa hablaha baydhabo reer baydhabo aad baan u salaamayna waxaan u leenahay haddii codkaasi idin soo gaadho baydhabo janaay baa ka soo qaadan lahaa raggana burcaan ka keensan lahaa marka hablo wanaagsan oo reer baydhabo iyo raggii aad ka hayay burca oo haddana kale lahjada waay oo sayid ku keen lahayd marka isfahanka baa laga galkaas la rabaa soo ma waay markaas waxay noqonaysaa bulshada hadda isma dhex gasho waay dadka ka yimaada waqooyi iyo dadka koonfur jooga markay yimaadaan waa loo kala tirjin markay isu yimaadaan waa loo kala turjumaana loo yeelaa waay haddii mid ka tagay baydhabo uu tago burco isma fahmayaan xaqiiq waa ilaahay mid ku soo aadiyay ma ogi waay laakiin haddii Muqdisho isugu yimaadaan marka hal gaar hablihii burcay raggii burcay hablihii baydhabo isku lahaa si lahjadana loo fahmo isdhexgal bulshada ay caruurta halka ka dhalataana waa isku dareemi kartaa waxay ka soo jeedaa waxay leeyihiin qabiil la dhaho democracy country waay si wanaagsan ku soco marka hablihii kale soo qaban lahayd si ay marka ugu qurxiso hablaha jigjiga ma sha Allah dawladda deegaanka Soomaaliyeed fanaaniinta dhan waxaan ka keensan lahaa jigjiga say ugu dhantayaan marka dhaantada ka dambaysaa marka waxaad leedahay deegaankayga si aan loogu mashquulin hidaha iyo dhaqanka oo dhan baan ka keeni lahaa jigjiga ma sha Allah aad bay runtii ugu horeeyeen hidaha iyo dhaqanka waana dad runtii ku adag oo aynu in badan aragno inay soo cusboonaysiiyaan marba ka dambeeya dhaqankeenii hore marka halka xulashadana ugu raacsan aniga lafta macallimiintana waxaan ka keeni lahaa wadanka wax ka baraya ka dhigay Gaarisa waay Gaarisa waan ka soo aruurin lahaa Gaarisa County waay marka maxay naga dhiman dawladdii waynu dhisnay waa magacawnahayba hadda shaqadii baa isugeysa dadkii oo dhan ay sugayaan waay mudan madaxweyne maadaama dawlad dimuqraasiya oo dimuqraadiyada aad dhistay in lagula tartamo sayad aragtaa ma dictator baan noqon lahaa waay juhdigan geliyaan ogaa marka magacan guud ee qaadatay dimuqraadiyadu miyaan u dhigayn in magaranaysaa goortii ay gaadho oo ay ku dhamaato waxaan u sameyn doonaa dastuur aan u sameyn doonaa dastuurka afkiisa hore waxaan ku qori doonaa in muwaadin walba oo dalka aniga aan maxaan ku rahdaa aastay ku nool inuu tartami karo laakiin dawladdaasaan soo gelaya dastuurka dhamaadkiisana waxaan ka dhigi lahaa qof aniga aan ahayn inuu wadanka madaxweyne ka noqon karo ilaa abadan bilowdana qof walba inuu tartami karo u furan marka waxaad isku furaysaa wadda in ciidankaagu hadhow ka afgambiyaan ciidanka waa la afgarnay afgarasho waay marka ku soco haddii bal tusaale ahaan oo kale dawladdii waynu dhisnay maasha Allah way qurux badan tahay waa degan tahay
wasiiradaada gudaha dawladda u magacaabayso wasiirka arrimaha gudaha ma dumar baad u dhiibi lahayd mise rag yaa wasiirka arrimaha gudaha dumar baa ku wanaagsan waayo xaalado badan ay ka warqabaan baad jira dumarka wasiirka arrimaha gudaha waxaan siin lahaa iyo maxaan ku rahdaa dabagalka raggaan siin lahaa weliba si ay ragga maxaan ku rahdaa dabagal badan ugu sameeyaan taa horta dumar waa la siinayaa oo guryaha markaan kasoo kacnaba ayaga maxaan ku rahdaa wasiirka arrimaha gudaha oo ah marka horeba qoyska iyaga hadday arrimaha gudaha ahaa mogsa haddana sidaas sida mid waddankana uga warqabi doonaan baan leeyahay madaxweyne ku-xigeenyaad ka dhigan lahayd ma dumar mise rag yaa madaxweyne ku-xigeen baa meelahaas laygama maro wax igu xiga inaan samaysto maba jeclin